darajada ilaah baa bixiya ninkii ilaahay wax ka dhiga ayaa wax noqonaya niman ilaahayna wax u qorin waxna u ogolaan lagamana yaa wax kasta tuusan ka dhiigka keeno indhaha dhiigka keeno inuusan waxba noqonin marka ha iimaansada qof waliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaan leenahay haddii aniga sida aan rabo aan waayo garabyo dhagaxa soo daadi baan maqli jiray taasi inaysan hadda waqtigan ummadan aanan diyaar u ahayn walaalkayga muriidiya inta ka hadlay dadka dagaalada si fiican u taabtay uu ka mid ah waa ognahay dagaalka Georgia war Georgia ma Georgiaysiin miya haddii aan joojinayn almiina yareeya noo dadkiiba marka garab uu leeyahay waxa maanta ee meeshan ka dhacay ayaa la isla wada ogyahay sidii wax dad ay noqdeen walaalayaal xamar indhaxumay soo martay xamar burburay soo martay xamar indhaxumay soo martay xamartaan ayadoo aanan ahayn oo anaga ay maanta wadda keliya ee laga wada baxo ee Maka Mukarrama ay tahay nin walbana difaac uga jiro xamar oo kala qaybsan gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed maanta ee sida u labisan aanan ku mari karin adigoo kabo haddii aad qaadanaysid midna in dacaskaaga jaallo u noqdo midna ay cagaar ay noqoto mooyaane hataa laba kabo dacas isku fiican oo adiga inaadan gashan karin ayaa la soo maray maantana muriidi taayb waa xiran yahay marka ma yeeli karno meeshii shalay laga yimid dib ha loogu laabto ma yeeli karno wax kalaba sheega laakiin reer xamarna idinka yeeli maayaan xamarna iyo waddankan iyo caasimadan xaalkeeda laba lay noqonaysaa waxaana lagu kala baxayaa sida naagtii ayada naagta cunuga dhashay ee ku qabsatay naagtii aanan dhalin ay tiri cunugan anaa dhalay tii aan dhalin tii dhashayna ay leedahay anaa dhalay war naagtaan adiga ma dhalin ee anaa dhalay may labadoodii waxaa la yidhi yaa soo kala saaraya nabi suleymaan xilligiisii waxaa la yidhi nabi suleymaan loo geeyey nabi suleymaan wuxuu yidhi haye waxaa la isku haystaa wiilkan naagtan waxay leedahay anaa dhalay naagtaana waxay leedahay anaa dhalay haye masaas ahaa ma labadiina waxaad isku haysataan cunugan qoftii dhashay haa warka waa gaaban yahay yuu yidhi haye mindidoon meesha taalo oo xiirmaah la ii keenu yidhi warka dhan baana soo gaabinayo waa la idin kala goynaa uu yidhi waa la idin kala bara tii cunuga aan dhalin maxay la soo boodi noo kala goy tii kale waxay tiri intaad kala goyn lahayd adiga si iyada iska qaadato adiga intii cunugayga horteeda uu kala goyn lahaa nabi maxamed wuxuu yidhi baraka beeshay nabi suleymaan wuxuu yidhi tii cunuga aanan dhalin hanoo kala goynaysi baraka beeshay adiga meeshaan noogaga tagaan ku yidhi cunugana ku wareeji qoftan xamar hadda ninkii yidhaahdo waa dumina iyo xamar ninkii yidhaahdo waa dhisa ayaa lagu kala yeelan doonaa ma gartaya ninkii xamar madfacan kulina yidhaahdo waligaaga